السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena xikmadaha. waxaynu ka soo xigan doonaa buugga 707 xikmadood oo uu qoray Cabdirasaaq Xasan. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Boqor Cabdikariin Jaamac afkar dhakhtar. waayo xikmadeenna koowaad, innaga oo dhan dhulka ayaynu joognaa. farqiga inoo dhexeeya ayaa ah qaarkeena ayaa xidigaha eegaya, qaar kalena hoos ayay u furaraan oo dhulka eegayaan. ha ku qiimaynin maalmaha dalabku ku soo go'o. wixii aad beeratay waxaad ku qiimaysaa inta xidideed beertay. dunidu way ku filan tahay damaca dadka ku nool oo dhan, balse dunida kuma filna damaca hal ruuxu wato. markabku mar walba uu xeebta yaallo wuu bad qabaya, balse looma samaynin inuu xeebta iska yaallo. dayaxa tilmaanso, haddii aanad haleelin oo aanad halkaa gaadhin, dhib ma laha oo waxaad ka mid noqon xidigahaye. dadka qaar iyagoo arkaya waxa koonka saaran ayay ku weydiinayaan sababta. dadka qaarna waxay ku riyoonayaan waxaan hore koonka uga jirin, waxaana isweydiinayaan why not. noqo qofka aad rabtid, sababtoo ah qof walba aad rabtid inaad noqoto hore ayaa loo noqday. si dadka sabab ay kuula joogaan ama baalal ay ku duulaan. qof walba wuxuu dhashay isagoo ooyaya, dadka qaar baa intii weli sii wada. doofaarkaa la dagaalamin, maxaa yeelay waad ku wasaqoobaysaa, isaguna waa ku farxayaa arrintaas. haddii aad rullow tahay, uma baahnid inaad u xasuusatid. u fikir sidii caaqil, balse dadka kula hadal luqadooda. bara sida wax loo dhegaysto, waxaad wax ka faa'iidi doontaa xataa kuwa sida qaldan u hadla. qofka bixiya raaligelinta ugu horraysa ayaa dadka ugu geesisan. qofka bixiya cafiska ugu horreeya ayaa dadka ugu adag. qofka iska ilaaba xumaantii lagu sameeyey ayaan ugu farxad badan dadka. ha aaminin inaad qaadatay go'aankii ugu saxsanaa, keliya go'aanka qaado kana dhig mid sax ah. noloshu waa sidii buuggii, uma gudbi kartid bog cusub adigoo weli akhrinaya buggii hore. waa inaad leedahay riyo si aad subaxa hore hurdada uga kacdid. khibraddu waa magacaynuula baxnay qaladaadkeennii. nolosha macno uma laha hadalladaadu, waxa macnaha samaynaya waa ficiladaada. waxaad ka fikiraysid macno ma laha, waxa macnaha leh waa waxaad samaynaysid. mar walba wejigaaga ku aadi halka ay qorraxdu kaa jirto, wuu kaa dambayn doonaa hadhkaaga amba hooskaaguye. maanta waa shalaydii aad ka cabsanaysay. waalidu waa in lagu celceliya hal shay iyadoo la filaya natiijo ka duwan tii hore. wanaagga kaa buuxa waa inu gubi karaa xumaanta kuwa hareeraysan. maalin wax walba way hagaagi doonaan, hadaloo la caddee si walba waxaad kuu qasan yahay. ogowna wax walbaaba inay sabab ku dhacaan. sharaf ma jirto daacadnimada ka weyn. haddiiba aad u cabsanaysid mustaqbalkaaga dambe, cabsidu way ku dilootay. maxaa yeelay maanta ayaaba ahayd inaad si raaxa lagu noolaatid. nabad ma jirto lagu helo in nolosha laga fogaado, laguma dulaysid.